سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرتبون تسود ويني أحد تسود هذا سؤال شديد ودي سنرتي سؤال مهم وي أو ده أرين أهمية جار ولا قرنك يسمى لان جود هامبا ورشد السبر كبربراء ده واحد تاني لنا هو يعني واحد تقرن وي waxaan inuu jecel lahay oo riyadeenu tahay mar walba in warshadaasi ay noqoto warshad noo shaqeysa oo aynu kaga maarano sibir kan inooga imanaya adduunyada kale iyo wadamada jaarka waxa kale oo xusid mudan in haddii warshadaasi ay noo hirgasho oo ama sida la doonayo ay u hirgasho in aynu adduunyada u dhoofino oo Afrika iyo caalamka intiisa kaleba aynu inagu wax ka iibino dhinaca kale markaad ka eegto dhaqaalihii dalka kor u kacaya shaqo abuur baa imanaya dadku shaqay helayaan baabuurta dhinac kasto ay tahayba dhaqaalihii wadankeenu ku dhisnaaba kor u kacaya marka horta inta haddaan taa ahmiyadda warshada ku sheego waxa weeye oo ila tahay ku soo ururinaya xukuumadda waxa ka go'an in loo helo maalgelin marka bil khulaasa ama baytul qasiidku waxa marka la soo ururiyo shaygu markuu soo dhamaado ee uu meeshiisa yimaaday ku qurux badan tahay in laga warramo ama tafaasiil laga bixiyo laakiin inta uu ama wali process ku jiro ama hindise yahay ama qorshe socdo ama wixii la wado wax la taaban karo oo la isugu soo wada minguuriye markay timaado ayaynu taa ka wada hadli doonaa hadii la hayra laakiin xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba waxa naga go'an in la helo warshadii sibirka berbera oo shaqeynaysa maalgelin waa loo raadinayaa waana loo doonayaa hawsheedina runtii way socotaa meel aad iyo aad u wanaagsan runtii way maraysaa marka anigoon kala qaadin waxa weeye hawsheedu meel wanaagsan bay socotaa waxaan ku tali jirnaa inaan ku guuleysano sida ugu dhaqsaha badan leh in loogu helo in la dhaqaajiyo warshadii saacadu si waxa jirtay shirkadaha qaar soo xariistay aragtidii qaar la sugayay ilaa hadda intee marayaan shirkadaha soo runtii ma oran karo intaasay marayaan waxaan ku soo koobayaa maalinteedii insha Allah ka wada hadli markay soo ururaan shaygu lagama hor dhaco ee halkii loogu tala galay in laga hadlo markay soo istaagto markaas in ka wada hadli doonaa inta sida yihiin iyo nidaamka loo galay waa qorshe dawladeed oo aad u ballaaran waa hanti qaran oo la doonayo in si weyn looga fakaro oo aan bulshadu lagu jahwareerinin markay soo gaadhay halkeeda ee nidaamkii iyo qorshihii loo dhigay iyo jidkii loo jeexay intuba ay isu soo toosaan markaas aynu ka wada hadlaynaa laakiin waxaan idin sheegayaa inay naga go'an tahay inaan warshada dhaqaajina hadii la hayraa saacadu si waxa jira warshadaha biyaha ayaan dadku u dambeeyay Soomaaliya ku soo badanayay sidoo kale waxa yaraaday warshadihii kale dhinaca kale wax soo saarka dalka ama noocyada kala duwan baahada warshadaha biyaha oo laftooda dhinaca kale la keenay qash fara badan maadaama biyo aad loo isticmaalayo saacado badan ay keeneen biyaha warshadahaas maxaad ku eegtaan ama dadka cabashay ka muujinayaan ma eegtaan inay buuxiyaan shuruudihii loogu talagalay horta waxa weeye waa su'aal aad iyo aad muhiim ah runtii dadkeenu waxay u baahan yihiin inay helaan wax caafimaad qaba oo wanaagsan oo caafimaadkooda wax yeelin waxa qabad jirta oo aan la dafiri karin weeye inay dadku ka cawdaan xaq bay u leeyihiin waxa loo baahan yahay marka la bini aadamka wax bini aadam la siinayo marka la furayo ama la process gareynayo ama la soo saarayo in wixii adduunyadu ugu tala gashay lagu isticmaalo oo standardka ama halka heerka aynu wax ku isticmaalayna uu yahay wax ama adduunyadu tijaabisay ama inaguba aynu intaynu awood u yeelan iska tijaabinay taasna ma dhicin runtii waxa la yaab leh in ay wadankeena ka furan yihiin hadday ugu yar tahay maanta dhowr iyo 10 warshadood oo biyo ah iyo warshada Coca-Cola oo iyadu warshad caalami oo aad u weyn ah anagu kormeer badan baan ku tagnay 2 jeer waxaan u kuurgelinay xaaladda dhabta ah ee wax soo saarka biyaha ma naan sideen runtii laabab iyo waxaan ku eegno waa hawl baaxad leh oo qaranka u taala oo tala qaran u baahan oo in go'aan laga gaadho u baahan markaan warshadaha kormeeraynay laba jeer baan tagnay 3 qodob baan eegaynay koow sida ay biyuhu u soo galayaan mishiinadan lagu sameeyay halkay ka soo baxayaan nadiiftooda iyo quality-gooda iyo sida ay yihiin laba beebiska biyaha soo gelinaya mishiinadan biyaha sifaynaya saddex biyahani ma yihiin biyo ku haboon in la cabo ama soo maray muxuu ahaa laabki laboratory-gii soo maray oo la eegay deedna
shahaadadii lagu eegay meesha la dhigo la tijaabiyo la yidhi biyihii sidaas imika sax ku yihiin dalkeenna maanaan runtii ku arag laababka noocaas oo kale ah haddii laga tegi waayo wax yar oo aanaan ku qiyaasi karaynin in bini'aadanka lagu tijaabiyo ayaan warshad walba ku arkanay oo dhex yaalo la leeyahay waa laabkii waan u soo jeedin intaas oo jeer ummadana in la lugooyo maaha qofku markuu samaysanayo warshad biyood oo ay dadku cabayaan waa in uu certificate caalamiya ama ku loo kala ama wax lagu eego waa in la helo waxa xusid mudan idin sheegaya sanadkan miisaaniyaddan 2017 in qaranka lagu daray laabkii lagu eegi lahaa biyaha wadogtii wadanka Kenya 300 warshadood biyaha la xidhay marka ma oran karna imika inagu xukunna kuma qaadi karno waayo wixii aan ku eegi lahayn aan ku garan lahayna ma haysano sanadka miisaaniyadda lagu daray marka la keeno ee la yiraahdo qalabkii wakaas biyihii lagu eego markaas talaabo la qaadi doona hadii la yiraahdo dhinaca kale kala xadeynta wasaaradda nagu xeer baan sameeyay xeerkaasi waa qabiyo qoraal golaha wasiiradu hor yaala waxaan rajaynaynaa in degdeg loo ansixiyo si looga helo xog fara badan oo ku saabsan kala xadeynta warshadaha iyo waxaas kuwa kalena waxaan ka rajaynaynaa marka laabkaasi yimaado haddii ay imtixaanka ku dhacaan oo biyahaas noqdaan biyaha bila shaybaarka daweynu ka joojini haddii quality yeeshaan oo ay wax sax noqdaan oo ay soo iibsadaan qalabkii loogu tala galayna waa loo sii deyn doonaa kulli waa mushkiladina haysato loo baahan yahay tala qaran laga gudbo waan ogaayo waan la socdo xogaal baan ahaa SBI kaliya ma yahay waxay ahayd warshadaha wax soo biyaha soo saaray sharaabka waxa soo dhanbay runtii iyo dawladda hoose ku wada hadeen cashuurtan xaqal xashiishka oo ay isku hayeen beer kartoon in loogu dhufto xaqal xashiishka iyo in loogu dhufto caagado in loogu maaragtay loogu dhufto laakiin nasiib wanaag daarintaas imika waxaan filayaa inay dhamaatay oo aanay waxba ka nooleyn oo iyaguna iska arkeen dawladdii hoose iyo ururkii warshadleyda guud ahaan oo SBI-na ka mid tahay oo ay ka wada hadleen imikana wax khilaaf oo taagan iyo baabuur kontaroolada joogta ma arkayno marka waxaan u soo jeedinayaa inay xalkooda dhameystaan oo si macquul ah dawladda hoosena aan maaragtay lagu ciirin ganacsatada aan lagu ciirin inay soo ururiyaan waxaan filayaa arrintaas inay naga dhamaato waa runtaayo horta magaalada Togo Jaale waa magaalo ganacsiyeed aad iyo aad u ballaaran waa magaalo uu ganacsigii Jamhuuriyadda Soomaaliland yaalo dhinaca kale markaad ka eegto waa dekada qalalan baa loo yaqaan ma qaadi karto runtii waxaan munaasib ahayn iyo maaragtay in wax lagu tara mooyaane wax dhib iyo hawl u geysanaya ma qaadi karo soo lacagteeni baa taala haddaan su'aasha kale u soo noqdo arrinta damdamiska magaaladu aad iyo aad bay ugu baahanta waxaan uga mahad celinayaa horta intaan taagelin cid kasta oo ka shaqeysa magaalada in damdamis loo sameeyo way magaaladu guriyo dhagaxa inta badan ma oo guriyo jeengada waa guriyo maaragtay saacad kasta dhar iyo raashin iyo badeecad fara badan taalo marka waxay halis ugu jirtaa haddii uu dabqabsado inay mar iswada raacdo si taa looga badbaado dadkii keenay iyo ciddii ka shaqeysay aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa ee dabdamiska keentay waxaanan meesha oolin dhismaa loo sameynayay damdamisku leeyahay waxaan mahad celinayaa wafdigii tagay ee dhagax dhigay ee sida wanaagsan u dhagax dhigay taana aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayay